fanaaniinta ka tirsan kooxaha qarsoon ee caalamka. Robin Rihanna Fenty waxay dhalatay 20 Febraayo 1988 waxayna caan ku tahay magaca manaaneysta Rihanna. Rihanna waa heesaa sidoo kalena waa jilaayad naqshadaha modelada samaysa, waana haweeney ganacsato ah. sidoo kalena waxay qortaa heesaha. waxay ku soo biirtay hees qaadista 2003 waqtiyadaasi kama tirsanin Rihanna mas'uuliyadda, xitaa laguma arki jirin calaamadaha mas'uuliyadda. 2005 waxay duubtay albumkeedii ugu horeeyay, xaalkeedna wuxuu ahaa sida fanaaniinta kale. laakiin markii ay bilowday inay la shaqeyso Jay-Z, Rihanna waxay aaday wado kale, taasoo ah inay ku biirtay kooxda Illuminati-ga. Jay-Z wuxuu qabaa Beyoncé, waana qofka geliyay Beyoncé mas'uuliyadda. Rihanna wuxuu geliyay kooxdaasi mas'uuliyadda. Jay-Z wuxuu ka mid yahay dadka caanka ee xiriirka la leh mas'uuliyadda. Rihanna ayaa bilowday isbedel, waxayna soo saartay albumkaasoo sawir ahaan u muuqday waxaan ka mid noqday mas'uuliyadda, maadaama ay isticmaashay isha aragta wax walba. waa sida ay iyaga aaminsan yihiin. mid ka mid ah heesaha ay duubtay muuqaalada ku jiraan Rihanna waxay wadataa warqad, waxaana ku qoran Rihanna Princess of Illuminati. Rihanna waa amiiradda Illuminati-ga, taasoo cadeen u ah kooxaha qarsoon inay ka mid tahay Rihanna. ogaada Illuminati-ga iyo mas'uuliyadda waxba isma dhaamaan, waayo labadoodaba waxay sugayaan Dajjal, waana kuwa caabuda shaytaanka. Rihanna waxay ka mid tahay fanaaniinta caabuda shaytaanka. fanaaniinta ka tirsan kooxaha qarsoon ee caalamka. Justin Bieber waa fanaan u dhashay Canada, asalkiisana waa Yahuudi. fanaankan wuxuu ka mid yahay mas'uuliyadda. heestiisa ugu horeysay waxay soo baxday 2009. waqtigaasi ilaa hadda waxaa daawadeen 2 bilyan in ka badan oo qof. waa fanaan aad u da'yar, haddana heesaha ka gaaray meel aad u sareysa, waayo 6 ka mid ah heesihiisa waxaa daawadeen bilyanis dad kor u dhaafaya. fanaaniinta heesaha qaada waqti yar kadib waa laga xiisaa, laakiin isaga weli wax isbedel ah kuma dhicin. Justin Bieber wuxuu ka tirsan yahay heesaagan mas'uuliyadda, weliba si degdeg ah ayuu caan ku noqday. heesihiisa waxaa ka buuxaan waxyaabo aan caadi ahayn iyo tixraacyo mas'uuliyadda ku saabsan iyo calaamadaha lixlix, astaanta Dajjal iyo geesaha shaytaanka. hees ka mid ah heesihiisa ayuu si cad ah ugu muujinayaa haramka ama saddex geesoodka mas'uuliyadda. isla heestaasi gudaheeda mar kale isha mas'uuliyadda ayaa lagu soo dhex darayaa. tusaale ahaan, iyadoo la isticmaalayo qalabka tiknoolajiyadda ayay Illuminati-ga ku soo dhex darayaan. sidaad u jeedaan, heesihiisa mid ka mid ah waxa uu leeyahay Justin dila fuqarada, waxaan jeclahay shaytaanka. mar kale Justin Bieber wuxuu ka tirsan yahay Illuminati-ga ama mas'uuliyadda. fanaaniinta ka tirsan kooxaha qarsoon ee caalamka. Catherine Elizabeth Hudson oo ku magac dheer Katy Perry waxay dhalatay October 25, 1948. waa heesaa. sidoo kale waxay qortaa heesaha. Katy Perry waa mid ka mid ah fanaaniinta ugu caansan adduunka, waxaana lagu tiriyaa mid ka mid ah kuwa ugu saameynta badan dhalinyarada. Katy Perry si degdeg ah ay caan ku noqotay, heesaheedna waxay ku faafeen dunida reer galbeedka iyo kuwa carabta. warar lagu faafiyey internetka ayaa lagu sheegay in Katy Perry ay hadda ahayn masiixiyad, islamarkaana aysan rumaysnayn janno iyo naar. mid ka mid ah calaamadaha ugu caansan ee ay adeegsato Katy waa dhaqdhaqaaqa geesaha shaytaanka, kaasoo ah dhaqdhaqaaq lagu ammaanayo shaytaanka. mid ka mid ah calaamadaha ay aad u isticmaasho waa ubaxa balanbaarista, waana calaamad ka mid ah kuwa mas'uuliyadda oo ay u adeegsadaan xakameynta maskaxda. marka lagu daro calaamadaha kale sida astaanta isha, waana mid ka mid ah fanaaniinta ka tirsan mas'uuliyadda. Katy Perry waraysi lala yeeshay ayay ku sheegtay inay nafteeda ka iibisay shaytaanka. heesaha ay qaaday mid ka mid ah waxaa aad u dhibsaday muslimiinta. muuqaalkaasi waxaa ka soo muuqanaya qof kaas oo wato silsilad ay ku qoran tahay Allah. ninkaasoo hor istaagayo Katy Perry iyadoo ka carootay, kadibna wuxuu isku bedelayaa isaga oo dhan caro oo wuu burburayaa. waxaana aad ugu carooday muuqaalkaas dad badan oo muslimiin ah. markii dambe ayaa laga jaray muuqaalka qofkii watay silsiladda ay ku qorneyd Allah. kooxaha qarsoon sida Illuminati-ga iyo mas'uuliyadda waxay dagaal kula jiraan diinta Islaamka iyo muslimiinta. fanaaniinta ka tirsan kooxaha qarsoon ee caalamka. Marshall Bruce Mathers oo ku magac dheer Eminem wuxuu dhashay October 17, 1972. Eminem waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah fanaaniinta ugu caansan hip-hopka ee dunida. Eminem marar badan heesihiisu wuxuu ku muujiyay geesaha shaytaanka, sidoo kale isha aragta wax walba siday leeyihiin, iyo haramka saddex geesoodka mas'uuliyadda. wuxuuna cadaystay inuu ka tirsan yahay mas'uuliyadda. Eminem mid ka mid ah erayada heesihiisa ku jira waxaa ka mid ah waxaan nafteeda ka iibiyey shaytaanka, weligeena dib uguma soo celin doono. Eminem ayaa isku dayay inuu ka baxo mas'uuliyadda. mar heesaha uu qaaday mid ka mid ah ayuu leeyahay Eminem, haddii meeshaan aan ka baxo marka aan qaatay go'aan, aniga ayaa bixinayo qiimaha. wuxuuna ula jeedaa
haddii aan ka baxo mas-uuliyadda waxaan sabab u noqon doonaa dhibaatooyinka loo geysan doono dadka ii dhow iyo aniga. xitaa heesta markuu uu ku soo daray ereyadaasi waxaa la dilay mid ka mid ah asxaabtiisa, taasoo ahayd jawaab ku socota Eminem. fanaaniinta ka tirsan kooxaha qarsoon ee caalamka. Madonna waxay dhalatay Agoosto 16, 1958. waa fanaanad iyo qoraaga biyaa laxmiiste, sidoo kalena heesaha ayay soo saartaa. naanaysta Madonna loogu yeero waa boqoradii ma'suuliyiinta. heesaheeda waxaa lagu arkay astaamaha ma'suuliyadda sida geesaha shaytaanka, saddex geesoodka ma'suuliyadda, isha keliya ee wax aragta. mid ka mid ah dadka ka baxay ma'suuliyadda wuxuu yidhi, waxaan galay xaruntooda, mana noo qoraan heesaha dadka meesha joogaan oo dad kale ayaa noo qoraan heesaha aan qaadno. wuxuuna yidhi, waxaan noo qora heesaha aan qaadno shaytaanka. meesha heesaha laga soo qaadayo waxaa lagu daadiyaa dhiig si uu shaydaanka u soo dogto, oo iyaga ayaa noo keenaan heesaha aan qaadno. fanaaniinta ka tirsan kooxaha qarsoon ee caalamka. Beyoncé waxay dhalatay Sebteembar 4, 1981. waa heesaha iyo jilaayad. Beyoncé marka ay soo galaysay heesaha laguma arki jirin astaamaha muujinayo ma'suuliyadda, xaalkeedna wuxuu ahaa sida fanaaniinta kale. laakiin marka ay isguursadeen Jay-Z waxay ku biirtay Illuminati-ga. Jay-Z waa heesaa wuxuuna ka tirsan yahay ma'suuliyadda. had iyo jeer muuqaaladiisa wuxuu ku muujiyaa calaamadaha shaytaanka, waana mid ka mid ah taageerayaasha ugu waaweyn ee yahuudda iyo ma'suuliyadda. Beyoncé heesaheeda waxaa ku jiraan astaanta haramka iyo astaanta isha iyo lambarka 3 iyo astaanta geesaha shaytaanka, iyo xitaa waxay soo muujisay faraanti uu ku sawiran yahay ilaaha Baphomet ee iyaga ay caabudaan. sidoo kale gacmaheeda ayay u isticmaalaysaa qaabka Baphomet, sidaad u jeedaan. inta badan xafladaheedana waxay ku muujisaa haramka ma'suuliyadda iyo isha Dajjal. Beyoncé waxaa ku soo biiriyay Illuminati-ga ama ma'suuliyadda Jay-Z, kaasoo horey ugu tirsanaa ma'suuliyadda. fanaaniinta ka tirsan kooxaha qarsoon ee caalamka. Lady Gaga waa heesaa u dhalatay dalka Mareykanka, waxayna ka mid tahay fanaaniinta aadka u isticmaala astaanta ma'suuliyadda. waqti yar gudihiisa ayay caan ku noqotay Lady Gaga. sidoo kale waxaa jiraan warar xan ah oo lagu faafiyey internetka inay dishay gabadhan heesaha qaada ee Lana, waxayna qaadatay shakhsiyadeeda sida ay heesaha u qaadi jirtay Lana. arrinta la yaabka leh ee sheekadan ayaa ah in Lana ay geeriyootay iyadoo 19 sano jir ah, weliba si lama filaan oo shaki leh. waxay ka soo dhacday hotelkii ay deganeed dabaqa qaybta 10aad. waxaa la sheegay inay isdishay iyadoo aad u isticmaashay maandooriyaha sida ay iyaga dhaheen. kiiskeedana sidaasi ayaa lagu xiray isla markiiba. laakiin shirqoolkan ayaa la sheegay in Gaga ay ka dambeysay, uuna yahay qorshe ay soo dejiyeen Illuminati-ga. Lady Gaga ayaa caan noqotay geerida saaxiibadeeda kadib, waxayna sidaas u samaysay si ay ugu dhawaato ma'suuliyadda, iyadana caan ay ku noqoto. ugu dambeynna geerida saaxiibadeeda waxay noqotay caan. xitaa mar ay waraysi siisay TV ayay ku dhaaranaysaa Lucifer. Lucifer waa shaytaan. daawada adiga ma aaminsan tahay sheekooyinkan mise waxaad u haysataa xan, oo ma kula tahay inay jiraan ururo sir ah oo si dhab ah u maamula adduunka fanka iyo dadka caanka ah? muuqaalkeena halkaas ayuu ku egyahay.